waxaan noola diray inaanu dayactirno rug ka mid ah rugaha Hargeysa ee booliska waxaanu nimi rugtan inaan naxar waxaanu ku qanacnay markaanu aragnay dhibaatooyin fara badan oo ka yaala rugta markaanu nimanay waxa ugu horeysay albaabka laga galayo kaabad ay jabnayd gidaarkina waanu nadiifinay oo darintii baanu marnay alxamdulillah dhulkii baanu haddana jabinay sibirkii hore oo sibir jadiidan wada saarnay waxaan u qorxinay gidaarkii oo saa muuqataan ku sawirnay sawiradii gidaarka amba astaantii lagu garanayay askarta shalay markay ay yimaadeen ardada jaamacadda FF kuwaasoo si wanaagsan meesha dayactir badan baa yaalay si wanaagsan bay wax uga qabteen way dayactireen hadday tahay gudaha iyo dibaddaba ilaa musqusha meesha uu buuxday daaradda oo jabnayd way buuxiyeen aduu si wanaagsan bay tiimkaasi noola shaqeey wax noola qabteen oo adiga arkaya isbeddelka weynay ku sameeyeen siday markii hore ahayd iyo siday imika tahay waa idin mahadsan yihin tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Somaliland waa barnaamij qiimo badan oo uu maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo kamid ah jaamacadaha Somaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xeeldheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa hadda soo galaya ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Francois waxaa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مالين كلو وناكسن صباح كلو وناكسن وأنا سجوني مي ترتنك adeega bulshada ee jaamacadaha Somaliland ku soo dhawaada wareegga labaad ee tartanka waxaan halkan idinku hayaa mashruuca aad maanta ku tartami doontaan oo annaga iyo bulshaduba aan idinka ogaan doono mashruuca aad ku tartamaysaan oo sidii hore ka ballaaran qarashka oo intii hore ka badan waqtiga oo intii hore ka ballaaran intii aynaan u gelin dareenkiina la wadaaga marka koowaad waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim inta ka bacdi waxa magacaygu waa Maxamed Aadan waxay garabkayga taagan Xamdi Xuseen Khaliif iyo Umul Khayr magacayguna waxa la yiraahdaa magaca groupkayga qabtire waxaan ka soconaa jaamacadda Francois kulliyadda social worker dareenkaygu aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ama inaanu hore u sii socono aan u gudubno wareeggan labaad waayahay xafilaysan waxaan filaynaa inaan mashruucaygu noqdo mashruucan weyn oo aan wax weyn ka qabataan insha Allah waan idinku wareejin doonaa idinka ayaa la wadaagi doona annaga iyo bulshadaba mashruuca idin soo baxay mashruuca tartanka waxa weeyaan qurxi oo hagaaji rug bilays oo bilicdiisana wax muuqda ka bedel bilicdiisa adeed waa maasantiin waa adeeg bulsho oo bulshadiina u qabanaysaan mid ka mid ah rugaha booliska ee magaalada Hargeysa xaafadaha ku yaala ayaad ka soo shaqeyn doontaan guul iyo gobonimo aan idin rajeynayaa waxa tartamayaasha loo sheegay inay rug booliis qurxiyaan oo hagaajiyaan bilicdiisana wax muuqda ka bedelaan waxaana hadda ay guda galayaan sidii ay hawsha u qorshayn lahaayeen waxa horta salaamu calaykum groupkaygii qabtire aad baan mahadsantihiin intii hore soo wada shaqeynay haddana waxaan bilaabaynaa shaqo cusub iyo fayskii labaad oo inuu gudubnay waxaa la inoo diray shaqo adag saan arkayo oo saldhig boolis wax laga soo bedelayaa oo bilicdooda la hagaajinayaa dee promotion baynu u baahanahay iyo laynoo ogolaado marka xaggeed is leedihiin waad ka bilaabi kartaan mashruuca ayaa hawshaa laynoo diray anu waxaa isleeyahay marka ugu horeysa taliska guud inaan tagno waraaqadii permissionka soo qaadano kadibna inaan assessment sameyno inaga inagu xidhantahay oon saldhig hebel tagno kadibna aan kala xulano saldhigaan isleenahay ugu muhiimsan yahay waan ku waafaqsanahay midna aan yara sameyno dhowr saldhig hadduu inoo yara sheego inagu aynu kala doorano inaga qanaacad aan soo indhayno ugu baahida badan
falanqayn iyo doodeer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxaana ay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan oo soo raadiyaan rug booliis oo ku habboon. tartamayaasha ka socday jaamacadda France Fanon ayaa hadda helay rugtii booliisi ay bilicdiisa wax ka bedeli lahaayeen waxaanay bilaabeen inay gudagalaan hawshooda. annagoo ka socona jaamacadda France Fanon ama FFU oo ka qayb galay tartanka caalamiga ee Premier Bank waxaan u soo gudubnay wareegiisii labaad waana ku faraxsanahay wareegga labaad mashruuc oo ka badnaa kana baaxad weyn lacagta ka badnayd waxaan noola diray inaanu dayactirno rug ka mid ah rugaha Hargeysa ee booliska. assessment badan markaanu sameynay waxaanu tagnay rugo fara badan oo kala duwan ay ka mid tahay tii daami oo ay ka mid tahay rugo kale ku yaala kooxda kamay markii aan rugahan tagnay waxaanu nimi rugtan inaan naxar waxaanu ku qanacnay markaanu aragnay dhibaatooyin fara badan oo ka yaala sida uu maxamed idin sheegay waxaanu meesha ku aragnay dhibaatooyin fara badan rugta markaanu nimanay waxa ugu horeysay albaabka laga galayo kaabada ay jabnayd in markaad rugta aad hor istaagtay aanad garanayn inay boolis tahay in xaafadaha ka mid tahay sidoo kale gudaha markaan u galnay waxaan aragnay in sibirkii jaban yahay oo uu noo sheegay ninku markuu roobku doo inay gacmaha kaga dhuraan oo kale sidoo kale wuxuu noo sheegay suuligu inuu xidhnaa oo uu buuxsamay oo uu soo fatahayay kadibna ay xaafadaha jaarka isticmaali jireen sidoo kale meesha dayac fara badan baa ka muuqday oo xafiis sidoo kale may lahayn in caariyo badan ay ka muuqatay adigu rug dayac badan ka muuqday ahayd waxaan damacnay discussion kadib groupkeygii aan ku qanacnay in aanu inay tahay xaruntii aan u baahnayn ee aanu raadinaynay dayactir fara badanna u baahnayd dayactirkeygii marka discussionkii kadib aan isla go'aansanay inay tahay xaruntii ugu mudnayd waan gudagalnay hawshii say mulkhayr sheegtay dayactirkeeda ayuu u darnaa gidaarku caariyeystay baanu markiiba u doonnay maxaa la ranji waxaan u yeedhnay rag ranjiyeeya ranji waanu soo iibinay ranjigi markaan gidaarkii baanu marinay gidaarkii markaanu marinay waxaanu haddana samaynay xalay toole waxaanu ka tagnay waqti aad u dambaysa 12 habeenimo ku dhow waxaanu damacnay suuligii oo aad u safatahay soo mulkhayr idin sheegtay suuligii way soo fatahayeen wayna bananaayeen waxa aad noogu noqotay aanu ka naxnay amba aanu dareenay in askartayadii maanta dalka ay u shaqaynayay ay ku jiraan riski caafimaad sababtoo ah suuligii oo soo fatahaya ay iska qufleen oo buuxsamay waxayna galayeen jaarka saas awgeed waxaan damacnay in aanu go'aan ku qaadanay in aanu suuligaas u soo jeedno caawa sababtoo ah meeshan booyadan nadiifisada ee qaada suuliga waxay timaadaa waqti dambe saas awgeed waqti dambe ayaanu xalay halkan joognay booyadii markii wixii qaaday suuligii waa dhag oo la nadiifiyay gidaarkina waanu nadiifinay oo darintii baanu marinay alxamdulillaah dhulkii baanu haddana jabinay sibirkii hore oo sibir jadiidaan wada saarnay wax qabadkayga aad ayuu u badnaa alxamdulillaah laakiin wixii ugu waaweynaa waa naga sheegnay waxaan sameynay dee lama kala garanaynin rug askar inay tahay iyo inay tahay guri waxaan u qorxinay gidaarkii oo saa muuqata aan ku sawirnay sawiradii gidaarka amba astaantii lagu garanaya askarta saas awgeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan askartayadii la dareen noqonay waxaan ugu faraxsanahay inaanu baranay askartayadii oo aan ku qornay boodhkoodii annagoo ku qornay askartu waa saaxiibka dadweynaha waxaan leenahay ma aha kaliya nadaafadu ama ilaalintu goobaha kale laakiin askartuna way u baahan tahay dayactir dalkeena iyo dadkeena u baahan yahay meel kasta askartu joogtaan in askarta la ilaaliyo waajib baa inaga saaran anagoo ah groupkii jaamacadda France Fanon ee ka socday jaamacadda ka socday kuna jiray maxaa fayskii labaad waxaan wax ka weydiin doonaa taliyaha rugta in naxar May waxaan wax ka weydiin doonaa marxaladii shalay kullay shalay markay ay yimaadeen ardayda jaamacadda FF kuwaasoo si wanaagsan meesha dayactir badan baa yaalay si wanaagsan bay wax uga qabteen way dayactireen hadday tahay gudaha iyo dibaddaba ilaa musqusha meesha uu buuxday daaradda oo jabnayd way buuxiyeen aduu si wanaagsan bay tiimkaasi noola shaqeey wax noola qabteen oo adiga arkaya isbeddelka weyn ku sameeyeen siday markii hore ahayd iyo siday imika tahay wayna mahadsanyiin taliya ma filaysay inay ku iman doonto arday jaamacadeed
oo ka socota jaamacadda FFU iyagoo oo isbedel iyo dayactir kugu samayn doonta isla xaruntaadii oon waxqabadkeeda iyo sida u dayacnada aanu aragnay aanan nahay dhalinyar la dareen ah askartooda jeclaysanay inaanu rugtan nimaadno wax badanna ka bedelno xagga annagoo meelo badan assessment badan ku soo samaynay aragnay inay halkani tahay halka koobaad ee u mudan ee wax ka qaban karno xagga nadaafadda oo ahaa suuligii oo buuxay sibirka oo dhulka oo aad u jajabnaa calan la'aan oo calankii ma jirin rugtan laguma garanayn waxay kaga duwan tahay maxaa la dhahdaa xaafadaha dhexe xaafadaha kale sababtoo ah waxaanu ku samaynay decoration sida ay sawiradan idiin muuqda ee ah saaxiibku askarigu waa saaxiibka bulshada waxaanu isbedel muuqda ku samaynay isla xaruntaasi aanu tagnay oo aanu jeclaysanay inaanu dadkaasi askarta ah ee annaga noo shaqeeya inaan anaguna caawino intii awoodayada ahayd iyo wixii maanta naloo soo dhiibay waxaan bacdama ay tahay meel loogu shaqeeyo shacabka waxaanu aad u dayactirnay meeshaasi kuna faraxsannahay sidaanu askartayda ula noqonay la dareen kaale arag si wanaagsan baa ay wax noola qabteen waa in nala shaqeeyeen waanaan filayni dad badan muwaadiniina oo isxilqaamaa inay soodan noogu yimaadaan marka khayr baan idin rajeynaya saas awgeed waxaanu halkaa ku soo xidhnay kiiskayagii oo aanu soo dhammaynay kuna faraxsannahay inaanu hawlaha iyo waxqabadkayagii maanta soo dhammayno soo gebagabayno iyadoo saacaddu ay halkaa marayso oy saacaddu tahay 3:00 iyo barhkii ama 4:00 iyo barhkii galabnimo aanu hawshaydii soo dhammaynay saanu shalay toolo u galnay 9:00 subaxnimo waxaan aad ugu faraxsanahay waxqabadkaygii intii leekaa baaxadda lahaa askartaydeenu la dareenka noqonay aad baan ugu faraxsanahay waxqabadkaygii taasoo u qabanay wax muuqda bulshada ee askartayadii waxaa hadda madasha uu ka dhacaya tartanku soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo gelaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joog waa agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buuga dhacda iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada Sahra Cabdiraxmaan Axmed Kaahin Sahra K waa adeega bulsho oo ka shaqeysa samafalka iyo caawinta dadka tabaalaysan in ka badan muddo 12 sano waa adeega bulsho oo hal abuurtay ololayaal badan oo lagu taageeray dad baahan sida waqtiyadii abaaraha duufaanada bilaha Ramadaan iyo waxyaabaha la midka ah waa aqoon-yahanad ka howlgasha hay'adaha caalamiga Sheekh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland oo wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo aqoon-yahan bixiya tababaro la xiriira islaamka iyo dhaqaalaha waa qoraaga buuga 100 mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo midho dhala Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fanaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada in ka badan 7 sano waa asaasaha iyo hogaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka howlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto kooxda ka socota jaamacadda France Fanon oo magacooda la yiraahdo haqabtire soo dhawaada kooxda FFU waayahay kooxda FFU shaqo adag baa loo diray Soomaaliland marka la joogo waxa la yiraahdaa hebel jeelku ku hor ciyaaraya kooxdani waa kooxdii la yiri jeel soo hagaajiya rugby lays jeel yaaran oran jeelka iyo saldhigga iyo rugby way kala duwan yihiin rugby lays baa loo diray waxaan siin doonaa 2 daqiiqo
waxa ay ka warbixin doonaan wixii uu qabsoomay. marka hore salaamu calaykum qof kasta halkan fadhiya maqaamkiisa ku salaamayaa marka labaad waxaanu ahayn groupkii jaamacadda FF ka socday waxaana loo diray rug boolis bilicdiisa wax ka bedel waxaanu sameynay assessment ama meelo badan baan tagnay dhowr meelood markaan tagnay kadib waxaan tagnay 31 May oo ahaa saldhigii waxaan jiray rugtii ugu dambeysay ee aan ku qanacnay sababaan ugu qanacnayna dayaca iyo kuwii kale markaan isbarbar dhignay ay ahayd okay rugtii markaan tagnay waxaan aragnay kow albaabka ugu horeysa markaan ka galnay waxaan aragnay dhulku aad ayuu u jajabnaa marka labaad dhulku wuxuu ahaa bilaaranji gidaaradu aad ayuu caariysteen suuliyadu may askartu may haysanin rugtaasi ka tirsanaa oo shan qof yacni shaqaale ka ahaa iyo in ka badan oo rugtaasi joogta iyo dadka lagu xidhaaba may haysanin wax suuli ah oo way banadeen suuliga uu fatahay suuliyadu way banadeen markay banadeen waxay tegi jireen meelaha jaarka oo ay ku shil ku galayeen askartu halkaas markaan waxaan ka aragnay dayac aad fara badan waxay nagu noqotay waxaanu u soconay oo bilic ahaa iyo wixii meesha ka jira aad bay u kala duwanaadeen laakiin try waxaan isku danin intii awoodayada ahay inaanu la dharaandirino wax ka bedelno bilic hadday tahay caafimaad hadday tahay inaan wixii ugu muhiimsanaa anagu dhinacayaga qabano kow waxay sheegeen dhulka waxay ka sheegeen inuu yahay inuu dhulkani jajaban yahay sidaad arki doontaa fiidiyowga jajabka yacni dhulka caadiga ah ee daaradda u ahayd wuxuu ku hayay waxay dhaheen roobabka soo socdaa biyaha waan dhurnaa oo biyuhu kama baxo waxaan u sameynay inaanu dhulkii jajabinay oo aan sibidh saarnay waa tahay aad iyo aad bay mahadsan yihiin kooxda FFU waanan ku faraxsanahay runtii bahda haqabtire iyo dadaalka ay qabteen waxa aan ku bilaabi doonaa su-aalaha Fuad Cumar Yare. بسم الله aad iyo aad buu mahadsan tihiin wax la taaban karo oo hore iyo dib ale ayaa qabateen aad buu mahadsan tihiin ilaahay khayrkeeda idin siiyo waxa la wadaagteen maxay ahaydey boolisku waa kan halkan caawa u fadhino nabadda aynu ku saxano ka ilaaliya in dayacaad badan baa ka muuqatay halkan imika laakiin kolley inagana waa layna sugayaa mas-uuliyiintana waxaan leenahay dib ha u eegaan maxay ahaydey meelaha goobaha dadka lagu xidhayo idinku ma isku talagalayseen inaad dabagale toos ugu tagtaan oo tidhahdaan maxay ahaydey xarumaha booliska in la hagaajiyo oo maxay ahaydey sawirradana la wadaagtaan si ay wax uga qabtaan inaguna aynu caawino intii karaankeena salaamantii wax dabagalo laydhaa maanaa raadsan laakiin waxaan la talinay taliyihii rugta inaad daba gashaa bahayd aan ku nidhi taliye waxa caafimaadku waa shay businessku ka mid yahay caafimaad daraduna iyaga kaliya ma saameynaysa ilaa idinkeeda saameyn kartaa saas awgeed waa inaad samaysataan gabadh idin nadiifisa oo maalin kasta soo gasha suuliyada idinka maydha meeshana idinka nadiifisa intaasaan taliyihii ka codsanay anagaana awareness-ka u sameynay wacyigelinta aad iyo aad baad mahadsantihiin FFU barnaamij aad u ballaaran oo qiimo badan baa soo qabateen anigu 3 su'aalood baan insha Allah idin weydiin doonaa su-aasha koobaad xabsiga intaan arkayay iimay muuqanin cid ku xidhan marka miyaa lagu xidhnaa mise meeshu meel iska bannaan bay haydo maagteen waa su-aasha labaad aan idin weydiin lahaa waxa weeye xabsiyo kale oo iyaguna iska dhibanoo aan ka hawl yarayn baa iyaguna jira marka bal wixii aad kaga xolateen 1 2 3 haddaa odhan kartaan su-aasha saddexaad ee u dambaysa meesha waaba ka shakiye makira mise waa hanti wey su-aasha koowaad ee ahayd meesha dad maa lagu soo xidhaa horta markii horeysay anaaba kaabadda markaas u yar fadhiistay waxa lagu yidhi adeer maa lagu soo xidhay ana lii weydiiyey su-aasha laakiin waxay noo sheegay dhowr saacadood qofku markuu meesha ku yara xidhnaado in saldhigga loo gudbiyo oo rugta aanu in badan sii joogin horta markii aanu meelo badan soo indhaindheennay oo rugo kale aanu tagnay waxaanu kaga xulannay horta kow dayac badan baa ka muuqda dhulkeedu u duunsanaa suuliyadeedu way xumaayeen oo ad arkayseen sida ahayd waxaan kaloo aan kaga xulannay meeshuba kamay duwaneenba dee gurigiba kamay duwaneen oo decorationba may lahayn calan xitaa may lahayn staa may lahayn intaasaan kaga xulannay meelaha kale miyay idiin sheegeen inay kara tahay iyo inay rugta dowladdu leedahay may rugta dowladdaas kale horta hawl adag baad qabateen dad adag baad tiinoo Dr. Bulxan baa idin soo diray maxaa la idhaahdaa
كل حمسة كوري أنا تحسن سويديني أما ضد إن يرها لغة هيو أما إن بدنها لغة هي قلالك أحمد كقبتين أوكي إن كستون مقال كانوا كاركي ها qolka waxaan ka qabanay rinji baan marinay لكن دولك وحبها ha dhulka isagu dhaamay sida kale سوليدا marka laga yimaado khashinkiin aad ka qaadeen ma ka dhigteen suuli la isticmaali karo si aad askar tujaarkii waxa uu ha laakiin maxaa muuqaalka loogu daray way talo iyadoo la qaaday ma laakiin suuligii after iyo before man arkin waa la isbudeen sawirka loo gudbi karo waayo ha okay muhiimaddu waxa weyn inaad halkaa ka qabateen hawshan hawl sahlan ma waxay la sheegaysaa wadankeenu meel walba galdaloola jiro sidoo u dayacan yahay mashruucan maxaad ka barateen askarta inta leega dhex taagan meesha dawladdan matalaya maxay idin ka barteen inaad meeshii ay ku jireen sidaa u baaba'sanayd ee wixii basic needs ay ka mid tahay musqushii ay sidaa ahayd maxay ka baran kareen isleediin wacigooga uu ka bedeli karaa midda kale booliiskeenu waa dad iska adag sideeba idin qaabileen ma wajiga waxbaad kala kulanteen si aad uga dabaalateen si fiican baan loo qaabilay oo wax naga horeeyay qolka lagu jiray maxamed baa u galay oo la soo hadlay taliyaha kadibna ka soo qaatay codsiga ah inaan wax ka bedelayno oo si fiican bay noo qaabileen oo inoo soo dhaweeyeen waxaan anagu ka baranay maan aragnay danyar oo doorkii hore fiiskii hore waxaan ku soo gudubnay inaan danyar soo caawino danyar in la caawiyo iyo danyar dalka inay ka jirto ayno waan ogeyn markii horeba laakiin weligiis ma lahayn saldhig yacni baa sidan noqon kara oo gacan dawladeed ku jira marka waxaan halkaa ka baranay in dalka u baahan yahay dhalinyar badan inuu dalku u baahan yahay askarta u baahan tahay in nadaafad waxaan ku leeyahay maalmaha qaar loogu tago oo ina ahayn kaliya in dariiqa la nadiifiyo ay tahay dadka ku xidhan iyo askartaba in maalmaha qaar la soo caawiyo nadaafad ahaan lagu caawiyo aad baa mahadsantihiin kooxda FFU Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay Premier Bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bankigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay waad iska diiwaangelin kartaa adigoon akoon ku lahayn Premier Bank haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxa ay ku bixin kartaa walletkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash garaynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercard-ka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa haddii uu ka lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhaxelaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samayso Premier Wallet la soo deg hadda application-ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba